السلام عليكم ورحمة الله تعالى وبركاته. aad baan idin salaamayaa saaxiibayaal guud ahaan dadka ku xiran halkan. Waxaan maanta idin soo diyaariyey 17 English questions and answers, 17 su'aalood oo English ah iyo jawaabahoodii oo weliba qaab asluubaysan ee dadka wax looga codsado ah oo qaabkan qababacda iyo waxbahaas aan ku dhehnayn ah oo runtii insha Allah aad ugu heli doontaan haddii Ilaahay yiraahdo. Waxaan ka codsanayaa haddii YouTube-ka aad igala socoto in aad subscribe aad saartid kanaalka, haddii Facebook aad iga daawanaysidna in aad page-ka soo follow garaysid, muuqaalkana aad like-ta ku taageertid insha Allah. Wixii aragtidaada ana oo casharkan ku saabsan ama ka khaldan inaad qaybta comments-ka aad nagu soo wadaagto insha Allah. casharada hala taageero saaxiibayaal, juhdi fara badan baa soo geliya insha Allah. waayahay su'aasha ugu horeysa, can you pass me, ma ii soo baasi kartaa, waxaa laga wadaa ma ii soo gudbin kartaa the salt, cusbada, please, fadlan. maqaaxiyaha marka la joogaa jumladan aad loo isticmaalaa. Can you pass me the salt please, cusbada ma ii soo gudbin kartaa fadlan. Of course, dabcan, here you go, waa tani ho. Here you go, waa tani ho waaye. Here you are, iyo here you go, iyo here it is, waxaas dhan isku wada mid maayo. waa kani ho ayaa la yidhahdaa marka qof wax siinayso. Can you help me with this heavy box? Can you help me, ma iga caawin kartaa with this heavy box, sanduuqan culus. erga heavy waa culus, boxna waa sanduuq. marka sanduuqan culus ma iga caawin kartaa. Of course, dabcan, I will assist you, waan ku caawinayaa. Can you lend me, ma i amaahin kartaa a pen, qalin ma i amaahin kartaa. Of course, dabcan, take qaado this one, midkan qaado. waayahay. Can you do me, ma ii samayn kartaa. Can you do me, ma ii samayn kartaa a favor, asxaan ma ii samayn kartaa. And water the plant, aadna waraabinaysaa dhirta. plant waa dhir, waterna waa biyaha. marka hadda waxay u taagan tahay waraabin ama biyayn. So can you do me a favor and water the plant, asxaan ma ii samayn kartaa oo dhirta ma ii waraabin kartaa. Yes, ha, I will take care of the plant, waan ka taxadiri doonaa dhirta. marka I apostrophe double L waa contractions baa la yidhahdaa. I'll take, aad ugu dhawaaqaysaa I'll take. so markii caadi ay tawaatana I will oo la soo gaabi waaya. marka I'll take care of the plant, waan ka taxadiri doonaa dhirta ama waan xanaaneyn doonaa ayaad leedahay. Can you please help me, could you please help me, fadlan ma iga caawin kartaa with this math problem, problemkan xisaabta ah ma iga caawin kartaa. Yes, ha, let's work on it together, aynu si wada jira uga shaqayno. Let's work on it, aynu uga wada shaqayno xisaabta u taagan tahay, aynu si wada jira xisaabta uga shaqayno. marka together waa si wada jir ah. Can you give me, ma isiin kartaa a ride. Can you give me a ride, ma isiin kartaa. ergan af Soomaali maxaa lagu yiraahdaa, yani qofka markii aad gaarigaada intaad ku qaado aad meel geynayso. dabcan Soomaalidu lift bay iska dhahan, marka lift ma isiin kartaa iska dhigo ay dhahan. To the airportka lift ma isiin kartaa. so can you give me a ride, mid kale waxaa dhihi kartaa kaxayn, ma ii kaxayn kartaa to the airportka baan rabaa ama madaarka. Yeah, ha, I'll drive you, waan ku kaxaynayaa there, halka. Would you be able, ma awoodi karaysaa. marka erayadan aan isticmaalayna would iyo could iyo waxyaabahaas oo dhan waa qofka markii qaab asluubaysan polite way markaad qof wax weydiisanaysa aad loo adeegsadaa. so marka waxaa leedahay would you be able, ma awoodi karaysaa to babysit, in aad ii xanaanayso my kids, caruurtayda tonight, caawa. ergan babysit waxaa la yidhahdaa dadka waxaa waaye qofku wax xanaaneyn waaye. waa haddii aan qeexo waa look after a child or children while the parents are out of the house. waa inaad xanaanayso cunug ama caruur markii caruurtu ay guriga ka maqan tahay. marka babysit means look after, inaad xanaanaysid. marka yes, ha, I'm available, waa la heli karaa tonight, caawa available ahay oo waa la heli karaa waaye. Can you translate this text for me? Can you translate this text? textigan ma ii turjumi kartaa. Can you translate this text
for me textigan ma ii turjumi kartaa of course dabcan I can do it I can do that waan samayn karaa midaas arrinkaa waan samayn karayaa okay could you please lend me fadlan ma i amaahin kartaa your laptopkaaga ma i amaahin kartaa yes ha but laakiin be careful with it ka taxadar yani lacag fara badan buu ugu fadhiyaan u malaynaya ninkaas so but be careful with it laakiin ka taxadar baa layidhi ninkaas can you help me ma iga caawin kartaa find helitaanka my keys furayaashayda kaa maqan marka qof baad leedahay ila raadi marka waxaa leedahay can you help me find my keys ma iga caawin kartaa inaan helo furayaashaydii marka yes ha let's search together aynu si wada jira u raadino let us ayaa laga soo gaabiyey let iyo us markii contraction lagu sameeyo waxay noqonaysaa let's search aynu u raadino together si wada jira could you please pick up the kids from school today waalidiinta ayaa si badanaa is dhaho marka carruurta markii iskuulka laga soo wadaayo markii daraasadda iyo waxaas ay u dhammaadaan iyo xiisahooda pick up marka waa soo qaadid could you please pick up the kids carruurta fadlan ma ka soo qaadi karaysaa from schoolka today maanta no sorry halkan no ayaan dhahay so no daasaa laga rabaa maya no maya I am very busy today aad ayaan ugu mashquulsanahay maanta can you please forward me ma ii soo gudbin kartaa the emailkii you mentioned aad sheegaysay erga forward waxaa la qof inuu wax kuu soo diro adna qof kale aad u sii gudbisid share yani share ayuu dhigantaa I will send you now hadda ayaan kuu soo dirayaa sir mudane please sorry halkaana yuda waa khalad marka qof wax la amraa yuda lagama hormariyo so please turn off fadlan dami your phone telefoonkaaga during inta lagu guda jiro the meeting kulanka okay sir haye mudane could you do me ma ii samayn karaysaa a favor asxaan ma ii samayn karaysaa and check aadna ii hubinayso if the store haddii bakhaarku is open uu furan yahay hadalkan waxaa adeegsaday tusaale dukaan baa kugu ag yaallo qofna dukaanka wuu ka fogyahay marka dukaankii si uga adeegto inuu ku lugo ama rabo meesha waqtiga kaga lumo albaabka inuu meeshii xiran inuu tago marka hadan doonin ayaa jumladan la adeegsadaa marka waxaa leedahay could you do me a favor and check if the store is open ma ii samayn karaysaa asxaan oo ma ii hubinays karaysaa in haddii bakhaarku uu furan yahay marka of course I will do it now dabcan hadda ayaan samaynayaa waa gartay can you please wake me up at 7 a.m. tomorrow waalidiinta ayaa badanaa lagu dhahay jumladan can you please wake me up fadlan ma ii soo kicin karaysaa ma ii toosin karaysaa hurdada ma iga kicin karaysaa 7 a.m. 7 subaxnimo tomorrow beritoole insha allah haddii ilaahay yidhaahdo I will try my best waxaan isku dayi doonaa sidayda ugu fiican can you please remind me fadlan ma ii xasuusin kartaa of the meeting time waqtiga kulanka ma ii xasuusin karaysaa it's at waa 3 p.m. 3 galabnimo can you please take my order fadlan ma qaadi karaysaa dalabkayga what would you like maxaad jeclaan lahayd marka intaas ayaan jeclaysa saaxiib bal inaan idinla wadaago insha allah cashirka inaad taageertiin baa idinka codsanayaa muuqaalkan mid kaloo ka xiiso badan intaan ku kulmayno waxaan idinkaga tegaa sidaas iyo ammaano allah